wiilkan dhalinyarada ah waa 16 jir magaciisuna waa Cabdi Sahal Maxamed Cali waxaana uu la daawa dhacay xanuun si baan u fuuq bixiyay jirkiisa waxaana ay sheegtay hooyadiis inuu xanuunkani muddo dheer hayay isla markaana aysan lahayn tabar dhaqaale oo ay wax kaga qabtaan xaaladda caafimaad ee wiilkan da'da yar ee ku nool magaalada Boocame ee gobolka Sool hooyo Faadimo Guray Saarax oo wajigeeda ay ka muuqatay murugo badan ayaa cod dheer ugu baaqday qurba joogtii sidoo kale hay'adaha inay caawimaad caafimaad iyo mid nololeedba u fidiyaan wiilkan maadaama uu qoyskan yahay mid danyar ah oo aan awoodin la tacaalida xaaladda caafimaad ee wiilkeeda wiilkan da'da yar oo ah agoon isla markaana uu xanuunkani muddo dheer hayay ayaa ka soo jeeda qoys danyar ah kaas oo aan lahayn tabar dhaqaale waxaana si naxariis leh looga codsanayaa dhammaanba dadka muxsiniinta ah inay soo caawiyaan waxaan doonayaa haddii ilaahay qadaro in wiilka yarka oo agoonka oo intaas sano jira in aan walaalaha islaamka oo adduunka jooga meel walba ku nool ama hay'ad ha noqoto ama walaalaheena islaamka oo meelaha kala nool ha noqotee inay igu soo caawiyaan oo ay wixii ay karaankooda ii kari karaan iyo awoodi karaan igu soo diraan halkaasaan ku hayaa iyo isaga iyo ciyaalkaas wax islaamka magaalada jooga mooyaane wax kale oo wax igu tara aniguna ma shaqaysto oo isagii baan hayaa waxaan doonayaa walaalaha islaamka ee dhulka ku kala nool inay wax igu soo caawiyaan hadda ka hor kuwa saas oo kale wuxuu ugu soo caawiyay aqalka uu ku jiro aan ugu dhisnay ilaahay waxaan uga baryayaa intii soo caawisana in ilaahay khayr siiyo aakhirana jannadii geeyo waan ilaahay uga baryayaa adeerka wiilkan yar ee xanuunsanaya oo isaguna faahfaahin ka bixiyay xaaladda caafimaad iyo midda nololeed ee qoyskan ayaa si weyn uga deyriyay isaguna ugu baaqay qurba joogta hay'adaha iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah inay gacan ka soo geystaan gargaaridda wiilkan yar ee ka soo jeeda qoyska danyarta ah isla markaana agoonka ah ee la ildaran xaaladda caafimaad ee soo wajahday si kastaba ha ahaatee qoyska wiilkan yar ayaa u mahad celiyay dad muxsiniin ah oo hore gacan dhaqaale ugu soo fidiyey waxaana hooyada wiilkan yar sheegtay inay aqal yar oo ay ku jiraan haatan loogu dhisay deeqdaasi si ay gabaad ugaga dhigaan bukaanka dhaxanta iyo fallaadhaha qorraxda iyadoo ay hooyadani codsatay in baaqooda si toosa loogu gudbiyo hay-adda maamacaasha ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska hay-addaasi oo u taagan taakulaynta dadka liita ee Soomaaliyeed